daawade xanta fireshka idinka dabageeyo ugu dambeyn Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi oo isku soo laabtay heshiiyay muuqaal lamaana ku ah nacnac isla dhuuqaayo nacnac afka isku gelinayo romantic jacayl rumayso ama ha rumaysanin adiga ku taala Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi kor is yaqaano lafihiisa isku yeero hore yaa loo dhahay Samiixa Idriisle Cabdi waa kor is yaqaan السلام عليكم اهلا وسهلا اصحابته ku xiran kanaalkayga Bella Sajin official soo dhawaada asxaabta cusub ee hadda igu soo biirtay idinkana soo dhawaada fadlan haddaad igu cusub tahay subscribe ka saar gambaleelka furo like share comment ga dhiirigelinta intaba way xaqiin daawade warkii hore war soo dhaaf ugu dambeyn Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi oo isku soo laabtay mar kale muuqaale isla soo duubay Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi oo tii ogaantoy ka dhaxdhacday oo si xun u bahdilay Samiixa Idriisle Cabdi way isku soo laabteen dadka caanka ah ee muuqaalada isla duubtaan dareenkooda sida u shaqeeyo ma aqaan Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi waa tii ogaantoy ninka ku dhigay oo si xun u bahdilay muuqaalada isla soo duubi jireen dhahay muuqaalada isla duubnay ka saar aalada TikTok aalada YouTube meel walba ay isticmaashid xataa Facebook muuqaalada aan ku mideysanahay ka saar Samiixa Khaliil waa ninkii u dhahaayay dadka caanka ah sidoo damiirkooda u shaqeeya dadka caanka ah si wanaagsan sharaf leh ixtiraam leh wax islama duubtaan kuma wada socdaan si wanaagsan oo sharaf leh ixtiraam lehna kuma kala tagaan laba maalin heshiis leeyahay laba maalin waa lees dagaalsan yahay wax walba dhaxdooda ka dhaco xumaan iyo samaan adduun weynaha dhan laga wada ogaana maadaama oo adduunka dhan hal qaarad yahay arag haddana waxa waaye qari Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi waa ogaadeen tii ka dhaxdhacday ama baraankii ha ahaado ama run ha ka ahaado waa ninkii ku bahdilayay naag darteeda u dhahaayay Samiixa muuqaalada isla duubnay ka saar aaladaada TikTok aaladaada YouTube iyo aalad walba ay isticmaashid xataa Facebook ka saar muuqaalada aan ku mideysanahay dadka hortooda ku bahdilayay oo dhahaayay ani adiga way noo kala dhamaatay qof cusub nolosheedu ku soo biirtay helay qoftaasi oo ah haboon waa masiibo lamaanaha isjecel iyo waxay ka dhax wareegtaa ee ka dhax qaraabataa labada qof saaxiibo ah labada qof isjecel labada qof oo markaas dadka isku dhow inay kala faniijiso macshi iyo maqrab inay u kala tuurto dabeecadeeda ah waxay ka soo bilowday Rayaan Bajaaj iyo Qamar Suudaani way kala faniijisay laakiin way ku guuleysan weysay haddana waxay kala faniijisay Samiixa Khaliil Idriisle Cabdi haboon alcamuum ugu dambeyn Samiixa Idriisle way isku soo laabteen Samiixa muuqaalada ayada Idriisle Cabdi ee ku mideysan yihiin waxay soo dhigtay aalada TikTok muuqaalada saacado kadib wayba ka saartay dadkii ku yaaceen oo dhaheen yaa ninka saas ku bahdilaynaaya damiir malihid naaya dad matihid naaq daciif oo iska adkeenaatay ninkii naag ku bahdilay ma muuqaalo la soo duubtay oo soo dhigtay marka lagu yaacay ee aragtay Samiixo in meel walba laga jiiday muuqaaladii way ka saartay maxay ugu saartay dadkii oo ku yaaceen yaani reer comment ku dhiigla oo isku tagay Samiixo markay aragtay commentiga markay gashabo waxyaabo dhaliil ah in loo qoraayo in la dhahaynaya ninka ku bahdilay ninkina ku jabiyay ninkina saas ku yeelama muuqaal la soo duubta haddana sida cunug yar oo adiga dhasho kaleenta ninacma afka isla gashanaysiinbo yaa ninacma afka u gelinay ninacma isla dhuuqaysiin balaay dhan markay aragtaa ku dhahay oo commentiyada dhan meesha fiirsaba hal qof oo markaas ku taageeray isku soo noqodkooda Samiixa Idriisle Cabdi markay waysay Samiixo fiidiyoyaasha way ka saartay aaladeeda TikTok ilaahay ceebtaha asturo hadaa maqashay waxa waaye ceeb dhan ma asturo Soomaaliya ka dhashtay maalin waxa ku qosno maalin waxa la yaaba maalin waxa ku ooyay ma arkin waa been Soomaali hadaa ka dhalatay maalin badaraama cusub maalin waxa ku yaabtida arkay maalin labada shalay
isjeclaayeen dadka iskugu dhawaa oo isdagaalay iscaynay ceebahooda iyo afaarahooda hoose dadka ku maqashiinaya arkay maalin waxa arkay dadkii isku dhawaa yaa dadka shalay isdagaalay ay dana ayagoo isku soo noqday damiir xumo la taagan yahay horeeya waxa loo dhahay kor is yaqaano lafihiisa isku yeera marka Samiixa Khaliil iyo Dirisle Cabdi waa ogtihiin dad hore waxay ahaayeen isku fiican iswada yaqaano wax isla duubto dadka iska jeclaa dadka iskaaga dhow haddana waxaaba la yiri waa ilmo adeero yaa dhinacna ilmo adeero ka ah dhinacna jabiibada ka ah dhinacna waxa waaye dhan walba laakiin waxa la yaab leh dadka caanka ee way isdagaalayaan waa la isfadeexaysanaa waa la iscayna waxba la isku ma yareysanaayo waa la isbahdila bahdiltii ugu xumaa bahdil xataa ugu dhaafataas bahdilyaalo dadka waxa isla duubto ee caanka ah waxa wanaagsan si ixtiraam leh walaaltanimo leh kalgacayl wanaag ixtiraam leh inay wax isla duubtaan haddee kala harayaan ay isku dhacaan carabi ilka isku dhow isqaniinaane ayagoo wanaagsan oo dadka dhan ogeysiinin ceebtooda fadeexadooda dagaalkooda iyo waxyaabaha ka dhaxeeya oo hoose si hoose ah inay iskaaga aamusaan oo xataa haddii la weydiiyo mush muhiim yani inay ka jawaabaan يعني wax walba noloshaada ku saabsan inaad dadku soo baahisid oo dadka ogeysiisid ma ahan marka isku dhacaan inay kala aamusaan ilaan dad kala maarmaaya ma ahane maalintii haddana ay heshiyaan ay isku soo laabtaan ayagoo si wada jir ah oo ceebahooda iyo sirtooda hoose iyo noloshooda khaaska ah iyo waxyaabaha ka dhaxeeya dhan dadka hortiisa la imaanin si damiir xumo ah si daciifnimo ah si ixtiraam la'aan ah dadka hortiisa haddana ay ku imaanin oo lagu sii dhaliilin oo lagu sii caynin waxa wanaagsan oo ani ila haboon hadeeba tayda tahay waxa dhihi lahaa marka isdagaashiin dagaalkiina waxyaabaha idinka dhaxeeyo dadka hala hor imaanina labadiina ha idinku koobnaado dadka caanka oo waxa isla duubta dhan xataa baraangiyada qaar oo la sameeyo yani wax qurux badan ma ahan baraangi yani adiga ku bahdilayo wax fiican ma ahan marka asxaabta qaaliga ah la socda xanta Freshka Samiixa iyo Dirisle Cabdi ugu dambeyn way heshiyeen haboon xiiso leh ahayd haboon saddexeeye waay haboon naagta dhan musalsalkeeda laga daba calaalay musalsalkeeda laga daba ooynayo waxay noqotay naag lamaanayaasha ka dhex wareegto labadii lamaano isku ah ama saaxiibaha ahaadaano ama ha isqabaano kala faniijiso oo macshi iyo maqrab u tuurtay noqotay Dirisle Cabdi iyo Samiixa Dirisle Cabdi waa tuu dhahayay Samiixa fiidiyoyaasheeda iska xir fiidiyoyaasha isla duubnatan tan iyo YouTube-ka ka saar waa ninkii dhahay oo saas dhan u bahdila naag darteeda calal agal naag aan waxba dheereen darteeda u dhahay fiidiyoyaasha aniga iyo adiga ku mideysanahay naagtan farxadeeda ka talinaya haboon ah yaa fiidiyoyaasha ka saar fiidiyoyaasha kubu ma arki kare damiir xumada Samiixa Khaliil iyo Dirisle Cabdi ilaahay ceebtaha asturo ilaahay dhaxdooda maslaxad ilaahay hadhigo dadka waxa wanaagsan si wada jir si wanaagsan oo sharaf leh ixtiraam leh in la isla wada socdo wada jir loo ahaado ama si yani wanaagsan oo sharaf leh in loo kala haro laakiin dadka caanka ah ee wax isla duubtaan ma kala haraan mana isla socdaan damiirkooda sida u shaqeeya ma naqaano ilaahay ceebtaha asturo